بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسة لا فيكتوريا سيمبر قاقاياش ميل باتشوكتين شيلك صدحات شعبك الصوماليات قرب جوك انت وحرما مانت انا وحنيشة وادركتين فضيت كأي كتشرت الدولة الصوماليات يدون ولي ملكين دولة سنترالة وقبلة الصومالية دان كتلس waxay isticmaashaa dawladda Soomaaliya farmaajo inama yaryaro midnimo qaran iyo ku kala oo gentleman iyo kala booraba dhaca nabadii Soomaaliya soo noqoto saana soo noqoto Puntland federaalka ilaalisay kana ilaalisay maantu dawladda Puntland waxay muujisay sovereignty waxay muujisay go'aanka shacabkeeda iyo dawladnimadeeda Puntland gobolkeedu inuu go'aanka iyaga leeyihiin عبدولي قاس سوى ناكسن بو واحد لي أو شرف له بو بيني واحد ميديا ذا لقوله يو شعترة ميديا ذا كسرت وأنه أبنى هاي دولة دفرماجو إن أي كتل السو شارع كلية أو مكة المكرمة يو فيلا صوماليا يو برلمان أو عيد مرة هذول ده يتلقين لها ماشي برلمان كالوحدة مركز الشعب الصومالي ذو حربانا وشيغو وتاد دلكيني صوماليا ها هذا سكوريرينينا صومالي لان waxaad maantu ku mashquulshaan in aad dawlad ka samaysaan muqdisho soo celisaan awoodii muqdisho waad soo celin lahayd maantu shabeellaha hoose faray ka baxsan tahay dulmiga ku jiraan reer baraawe maantu baraawe isbartiibaa la qarxiyaa le baraawe waa la haystaa dadka gumaysiga ku jiraan dadan dhulka u dhalana haysto beerihii shacabka waa la wada haystaa shalambood marka meel walba al-shabaab haysto bariire meel walba aad tiraahdid ragga al-shabaab jooga أميسون إلا بلدوين بالشباب كلا دقاليسا هيرشبه إلا هديتاي جبلان هديتاي كينيا إلى لسوا الشباب كلا دقالنتو كونفور قلبيت هديتاي عراضة صوماليا الشيغانيس الفدرال كالشيغانيس قد قدوا حكو جران جهورير يبوخ مركا ما أنتو فضيت كف فرماجو ليهاي وليهاي إذا ماذا غوردن بان لوريجي إذا ماذا إمارات كتوبراني مشاهرة دايسيانا لوريجي وصل مشاهر وهين كوي هربي مشاهرة دو دبحين marka waxa weeyaan waa riyo iyo waa huuhaa iyo waa iska hadal politician maaha siyaasiyiin maaha iyaga cadawga samaysanaya imaaraadkoon cadow ahayn iyaga dadka ku maaweelinaya imaaraadka dawladda dulminaya dawladda waxa dulminaya waa qayre iyo farmaajo imaaraadku shacab Soomaali badan baa ku nool tijaaradeena ku dhisan isha kaliya noo furan way khaliijka waa meesha kaliya ay Soomaali ka shaqeysto waxa la cunayo waxa la libsanayo wax walba dekada maanta shaqasiyo weeyaan marka Cabdiwali wuxuu qaaday talaabo aad iyo aad taariikh u ah aad iyo aad u wanaagsan waa madaxweyne mas'uul qaadi karo oo runta u sheegay dawladda Soomaaliya uu yiri dalkan annaga ka talino annaga imaaraadkana waxaan leenahay heshiis taariikhi ah marka waad aragtay beenta meediyada laga wado in imaaraadka ciidamadooda la saarayo waa la baaray iyo kan waa madaxweynaha beeniyay marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego meel walba ay joogaan Somalia is a failure state federaalku waa wax failure haddii ay federal run jirto waxay ahayd madaxweynaha intuu ku dhawaaqin ciidamo military la wareegaya imaaraadka tababaraan iyo askar la wareegaya iyo meel walba iyo siyaasadda imaaraadka intuu ka hadlay waxay ahayd inuu la tashto madasha maamul goboleedyada inuu la tashto marka conditionka Soomaaliya ay ku jirto IMF iyo World Bank iyo wax walba Jubbaland iyo Puntland budget kala siiyo waxa ka soo baxaa baarlamaanka Soomaaliyeed wasaaradda maaliyadda ansixiso wayna ku qasban yihiin inay bixiyaan maxaa dhacay waa lacag la soo tugsado Soomaali loogu talagalay lacagta la bixinayo waa lacagta dekada Muqdisho ka soo baxday waa lacagta mucaawinaadda u timid waa wax walba iyo intay iyaga xadayaan xadaan marka waxa weeyaan maantu failure state way Soomaaliya imaaraadkana waxaan kula talin lahaa inay safaaradooda ka rartaan degaan Somaliland oo credibility leh oo la heshiin karo oo wax la qaban karo haday bay sameysanayo wax sameysanayo shacab conceptual maanta Puntland waxay muujisay sovereignty way beenisay in ciidamada imaaraadku laga saaray ciidamada badda ay tababaraan taana waa dantii dawladda Puntland waa dawlad yar waa dawlad u baahan in la soo kabo dawladda Soomaaliya militarigeeda ay lacag siin wax laga sugay iska daayay marka waxaan oran lahaa Puntland dekada Boosaaso ay nagu filan tahay xiriirka khaarijigana dhuujiya gacanta ku heesta ninkan iska boodboodaya farmaajo ninkan qayre iska boodboodaya dadka la tashanin isku heesto in garabaati lagu taliyo meeshan waa loo soo halgamay waa la soo dhintay marka waxa waaye madaxweynaha wuxuu ku qaldan yahay wuu fudud yahay
he's too aad buu u fudud yahay waxa kale oo madaxweynaha dhibka haysta waxa weeye ra'iisul wasaaraha oo charlantan oo shactaroole oo cunug yar oo waxna kala garanayn oo siyaasad garanayn waxa kale oo jiro nimanka cabinetka ee wasiirada ayagana ciyaar suuqin wada ee oo dhalada muqdisho ku tumanay arrinka baarlamaanka weli ma dhamaan mawjad kala aad furmayso ninkii la dooran lahaa iyo sidii la suubin lahaa waan ognahay awoodda uu weli leeyahay Sharif Sakiin waa nin uu ka hadlay Usmaan Caato waa nin uu ka hadlay Cabdullaahi Yuusuf waddanka wuxuu ka degi lahaa Sharif Sakiin marka waxaan u sheegayaa shacabka Somaliland maanta waxaad maraysiin heer sare hadday khaarijida tahay hadday gudaha tahay hadday horumar tahay hadday dhaqaale tahay hadday ciidan tahay wax walba tahay marka waxaan kula talin lahaa raggan ee maanta ku mashquulsan suldaan wawaro hadlayay oo Puntland iyo beeldaadshe la boqoriyay iyo waxa Somaliland kama jiraan Somaliland way in iska ilaalisaa saatiin iyo shirka garxajis iyo oday dhaqameed iyo waxa oo aan u soo noqonaa Somaliland we have a progress waxaan leenahay progress waxaan ku soconaa challenger speed aan adduunka wax la qaybsanayno globalization gelin marka waxaan oranaynaa ruushku waan soo dhaweynayaa Israel carabo inuu isna base ka sameesto 1500 oo ciidamo dhigto iyo diyaarado la yimaado airport ka dhiso dekada dhiso tan DP World si fiican bay u subisaa xiriirka Ethiopia hal xajiyo baasaboorkan lagu soo galay dalkan hal xajiyo meesha wada hadal iyo wax naga dhaxeen kara male dawlad ma jirto waa dawlad maalin walba isku qaadaysa ama imaaraadka ama qolo kale ama inaan baasaayir ama kan baasaayir ama kuba dawlad ka hadal ama habar baa ka hadashay ama baarlamaanka lagu hajamaya ama dawlad baa hadlaysa ama martiba taa la oranaya farmaajo dawa waxa wada ognahay marka waxaan oranayaa dhalinyarada there is a failure state ma jiro waxa la dhaho federaal waxa jirto madaxda oo madaxweynayaal ah oo dantooda u tashtay oo dantooda ilaashanay iyagana waxa loo baahan yahay shacabka la degan ay wax la wadaagaan ay noqdaan dad comprehensive ah si ay ku gaaraan aqoonsi sida Somaliland oo kale Soomaaliya waxay ku socotaa dawlado yaryar imaaraadku saakuma aamusayo imaaraadku wuxuu xoojinayaa amniga Puntland imaaraadku horumarka dhaqaalaha iyo amniga Somaliland kor buu soo qaadaya imaaraadku wuxuu xataa aadayaa ilaa Baraawe ilaa Kismaayo ilaa meel walba balan aragno Muqdisho iyo dekedeeda waxay tarto imaaraadku wuxuu soo wadaa barnaamij ah inuu mamnuuci doono rarka ka baxayo deera Dubai ama Abu Dhabi khaliijka ka soo baxayo inay dekada Muqdisho ku xiran oo rar dekada Muqdisho la geenayo oo san jiri doonin marka waxay u soo adeegan doonaan berbera iyo boosaaso dekadaha uu imaaraadka sameysanayo ayaa rarka laga soo qaadayo imaaraadka la geen doona Somaliland waxay noqonaysaa booming Somaliland waa in visa lagu soo galaa waa in laga ilaaliyaa ragga al-shabaabka ah waa in tijaarada xamraadaysa la ilaaliyaa waa in hubka iyo waxa la qabtaa waa in qanaasirada la dagaalaa dekada waxay noqonaysaa dekad weyn imaaraadku wuxuu wadaa barnaamij uu ku xoojinayo dekadaha geeska Afrika hadday Somaliland tahay hadday boosaaso tahay hadday Kismaayo tahay hadday Baraawe tahay inta markuu subiyo wuxuu soo dejinayaa cunaqabateen ah in rar Muqdisho la geen karin in diyaaradaha ka degaya airportka Muqdisho aysan Dubai ka dhoofi karin ay ka degi doonaan Hargeysa iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo Jubbaland imaaraadku waa dawlad xoog leh awood leh waxay maanta xoojinaysaa siday cunaqabateen dhaqaale ugu soo riday Qatar dee ummadda hayso 40 jarlantaana imaaraadku waa inuu go'aan ka gaaraa waa inuu iskaga tagaa Muqdisho uu aadaa Boosaaso ama uu aadaa Kismaayo ama uu aadaa Hargeysa waan soo dhaweynaynaa imaaraadku waa dad aan cilaaqaad dheer leenahay tijaaro dheerna dhaxmartay meeshan dhaqaalaha Muqdisho galayo ee Mooryaanta ay tuugta leedahay cunaqabateen waa inuu ku soo rogaa imaaraadku waa inuu barbidin ka dhigaa in export laga sameeyo Dubai oo aadayo Muqdisho dekadaha alaab loo rari karo imaaraadka uu soo saarayo waxa weeyaan waa dekada berbera dekada boosaaso dekada Kismaayo iyo dekada Baraawe hadday dhismato marka waxa ugu horeyso imaaraadka xoog saaraya in tijaarada Dubai ka soo baxayso laga soo doonto dekada berbera taaba ku xigto barnaamijku imaaraadka hadda wado imaaraadku wuxuu doonayaa dawladdan kibirtay inuu cunaqabateen saaro diyaaradaha Soomaaliya aaday yaryar Abu Dhabi iyo Dubai ka baxayana iyaga cunaqabateen ku soo dejinaya wuxuu flightkiisa noqonayaa Djibouti iyo Hargeysa iyo Boosaaso wax dambe oo imaaraadka ay Muqdisho calaaqad ku yeelanayso dhanka cirka iyo badda ma jiri doono waad arki doontiin halkeega si fiican u dhageysta imaaraadka wuxuu soo wataa barnaamij ah uu cunaqabateen dhaqaale ugu soo rogayo dekada Muqdisho iyo dekada iyo airportka Xamar markaasaan arkaynaa wuxuu farmaajo suubin karo haddii Qatar ay Soomaalidu alaab ka keeni doonaan marka waxa weeyaan wuu degdegay siyaasadoodii halawday they are not politician siyaasad ma laho
failure state way marar boqol isku taagayaan awal waxay dhihi jireen Ethiopia burburinayso maanta Ethiopia lagama hadlo Ethiopia uma baahno Soomaaliya Soomaaliya Ethiopia u baahan Djibouti uma baahno Soomaaliya Soomaaliya Djibouti u baahan marka dawladda yar ee maanta abaalka lahayn ee dhabarka minti ka gelisay Imaaraadka ee dhaay Imaaraadkana duminaya waa dawladdii Imaaraadka ayaa soo qaaday dalka oo Muqdisho dhistay oo mucaawinaad siiso oo diyaarada ay u kareysay xataa ay ku tunteen ay ku fasaadeen marka waxa soo socdo khayr badan dekada berbera ayay ka soo degi doonaan badeecadaha laga keenay Imaaraadka oo tan Muqdisho plan baa la wadaa hadda uu cunaqabateen uu ku soo rogayo Imaaraadka in dekada Muqdisho alaab laga soo dejin karo oo laga soo dejin doono Boosaaso iyo berbera dantiisa gaarka ah iyo dadka ixtiraamka leh ayuu la shaqaysanaya waxa kale oo ku xigi doonto in diyaaradaha Dubai ee airportka Muqdisho ka baxay ay ka bixi doon kuwa Nairobi deerbana ka baxaan Imaaraadku diyaarad Soomaaliya Muqdisho ka timid kama degi doonto waxay ka degi doontaa kaliya diyaarad Hargeysa iyo Boosaaso iyo Kismaayo marka waxa weeyaan waxa soo socdo xarbi baarid ah oo raggani mooryaanta ah ee kibray ee tuugsiga ku kibray ee sadaqada ku kibray ee abaalka lahayn waxa la tusayaa waxa ay qaban doonaan hadduu Imaaraadku mamnuucana in laga dego Muqdisho Sacuudiga uu mamnuucaya xujaayada Boosaaso iyo Hargeysa ka baxayaan marka waxa lagu soo socdaa wax waqti fiican oo la doonayo dawladda in daris loo dhigo annagana waan soo dhaweynaynaa dawladda Soomaaliland waxa la doonayaa amniga inay ilaaliso waxa la doonayaa inay u furto badeecada ka soo degayso berbera inay Soomaaliya aadi karto ay tax bixiyaan waxyaalo badan oo hagaagsan baa u soo socda Soomaaliland hasta Victoria sempre qaqayash waxa la yiri bari hore la yiri rasuul Ali sallallahu masiibo qooman inda qooman faa'iido masiibada ay nimanka ku jiraan anagu waan ka faa'iideynaa haduu Ilaahay yiraahdo maxaa dhacay nimanka waa nimankan dhibaatay waa nimankan xasdan oo aqoonsi noo diidan wax walba noo diidan maantana inay hoos yimaadaan ay alaabtooda annaga laga soo dejistaan horta waa guul soo hooyanaysa hasta Victoria sempre qaqayash saddex bil gudahooda waxa bilaabanaya barnaamijka ah in dekada xamar Dubai alaab looga soo diri karo in loo soo diri karo Boosaaso ama berbera ama Kismaayo hasta Victoria sempre qaqayash ma salaam